محمد عثماني الله وحوي كل ورك وضيان شهرة وضيان شهرة ورك الدمية وحوي وحال عرك جري وحال يابا الله يدي سبحان الله لقى لقى وح كل عي هالكم كل عي وح سبحان الله لقى لقى هيد وعقل قبل هذا كوكاني كرماهي وحال كل عي واحد تلمامي كذا ما هين وهذا ركتين وهذا ركتين وحين نقول عي إني لا تكاركتين وح عقل كوكاني كرماها إني لا تكاركتين تاس أنت ما كنا في بقى أنا هاي أنا مريم محمد ظاهر بانا هاي عركان السوق قاري وفاكان السوق قاري maxay hayday markaan deeqaladii ka yaamnay waanu ka baxnay sidan baan u yaacnay reerahan sare reerahaas daadkii ilaahay dawu naga duwa uu naqaadi lahaa ilaahaygu naga badbaadi marka de xoolaha yagina wuu qaaday de hadaan dameer lahayn iyo hadaan ari lahayn bad waa ka qaad de waa mahad ilaahay in ka nool lahayd de kol hadaan anagu nool lahayd xoolo imsay hayeen uu ka qaaday xoolo arigu wuxuu ahaa konton buu marka waxba kama haysid hadda waxba kama hayo laba neef baa ka yara nool bur xagan buuruhu kuula maqna marka laba dameerood oo lahaana uu iga qaaday marka de laba aniga la saddex qof baan halkan joogno saddexdii qof de waan guriga ku noolayn waan badbaadnay Rahmaan Rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Umar Isma Faarax ay Umar bal ka waran sida ay idin saameeyeen daadadkii iyo roobabkii dabeelaha watay bana halkan gobolka Awdal horta ka tirsantahay waa degmada Lughaya gaar ahaan waxa tuulada Gargaara waa xarunta labaad ee degmada Lughaya waxa dhacay waa waxa Ilaahay ka dhacay Ilaahay wuxuu ridaana waa cadaalad baa leeyahay kaaga waramo مرة هذه عدالة هنا وأكون قناعسنا الحمد لله رب العالمين صوبته دواب عدالة بالي كل ما ورك لو وسي قدبه وحده هرنا ونور شيء أنا كنا أرك بالك دعي وح كدعي دبيل روب وضته وان دبيل هنأرك جرنا هين أو روب كان أرك جرنا هين مركو رسول راسك على موين كروب كلها عير عطش مريسي بيه يسود دينا يعركنا daad kale oo saro socda biyo sare tagay waa la sugayaa maama Soomaaliyeed bahay biyaha hoos socda kuwa sare tagay baa dul socday biyaha ay dhex galayeen korba u joojinaysi bini'aadankii markay sidaa u joogsadaan iyo haddana dhaqaaqayeen markay dhaqaaqaan maxay sameeyeen dhimashada tu imika dhacday iyo tu qadiimiya iyay isugu jirtaa tu dad baa dhacday oo magaalada Gargaaraad waxa ku dhintay 22 qof oo laba xaafada yihiin xaafadi 8 qof ay ka koobnayd xaafidina 6 qof ay ka koobnayd hal inaan oo iskoolka ku maqnaayo dhiganayaba ka hadhay meelahan kulay uu joogay xaafadna intee way israaceen inta kale magaalada wax dhaawac ku dhintay oo jiingadii dishay iyo wax aqal ku dhacay iyo wax dardaday bay haayeen aduu meydka inta la laayay waxa weeye 5 qof imika hadda inta la laayay baadoonkiisa lagu maqan yahay eeriyada Gargaaraad ها sagaal buu ku ahaa sideedii kala baxay markay sidaa tahay dhimashadu waa waxa la laayahay iyo waxa la aasay geedaha seed waragtay imka waxa dhinaca dambe taagan diyaarad helicopter oo wada gargaar cunooyin daawooyin iyo cunooyin fudud seed waragtay abu dareenkaaga ahaan maadaama ay soo direen imaaraad waxaanu arkayaa على الواجب ضد إسلام كواجب قرأ تالي حمين هذا قف حنون تكلنا ويحنون سا ضد إسلام أو سكت قف قرأ توضع النهاي أو دم قدم بنوار كيانو مركز سيدات هذا إمارات كنا عيد النجاح كتابه مجرت سنة وعمسين شخصيات هذا عيد النجاح كتابه مجرته وح ماذا يوم بالجبا إمارات كوارم هنقينا وأنا نود عينينا وأنا بشير رمضان وحن لين هاي وحن صوب حسين وح بدل خير قبائل لين يقول بدلوا ميسانك حسناتك إلهي أن نقول وفيو أن نقول ضرو مدحوينها إماراتك إيا مسؤولين تسكال إيا شعب كيسا دمان وانهم هنقينا دولة سومالان دولة الصومالي لينا دولة ديادي وابا الدولة ديادي يضو كل يلا محلقنا محرنقا نقول مالبا إن كبان بين نقول هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دورته wixii dalkan ka dhacay dalkan waxa weeye ninkii doogi wuu ogaa kii maqlay wuu maqlay kii arkayna wuu arkay waa waxaan bini'aadmiba looga sheekay karin cid bini'aadmiya oo ilaahay tuso mooyaane cid aan uga sheekayn karaynaa ma jirto
haddana alxamdulilaah ilaahay intuu u dan lahaa unbuu ku dilay intuu noolaynayana wuu nooleeyey waxase laga simay waa caydh xagga rabbi lagama caydhoominoo ilaahay dadka wuxuu haya wuu hayaaye laakiin inta aragtidii wixii la arkaayey ayaa laga simay waxaan u jeedaa waa xoolihii neef xoolo oo dhulka ku hadhay ma jiro neef xoolo oo dhulka ku hadhay ma jiro been sheegi maaye halkaa aan joogno iyo ilaa karuure ilaa lughaya intaba waan soo maray ilaahay waa ogaa waxa dhacay anna waan ogaho waan soo arkay alxamdulilah waa qadar allaa dhacay cidna uguma cadhoonayno si kastaba ilaahay waan ugu mahadinayna intuu u dan lahaa buu qaaday intii inuu nooleeyo u damcayna way ka hadhay nimcada ka dambaysa allah inoo calfo waxaan u mahad celinaynaa tallaabada fiican ee ay dawladda somalilan qaaday ee uu madaxweynuhu qaaday ee aad arkaysaan maanta diyaaradda halkaa fadhida cid kastaba ha ka soo kireeyee isagaa soo rari calaataakay u gaadhay dalka shalay lughayay fadhiday shalay toole galabtii lughayay fadhiday meel walba way martay ismana taagayso meel walbana way gaadhsiinaysaa ilaa kuwa kale halkaa ku urursanaya degmada gebigeeda waxa weeyaan waynu u mahad celinaynaa xukuumadda uu madaxweyne muuse bixi hoggaaminayo waynu u mahad celinaynaa ilaaha garansiiyey inuu dadkiisa u gurmadana waynu u mahad celinaynaa alxamdu lilah rabbialcaalamiin intaasaan hadalkayga ku soo gaabinaya waxa meesha ka dhacay laisma weydiinaya waa la wada arkaa dhibta ka dhacday ee dhimashada tu dadeed iyo tu xoolaadba labadaba way misowday intii ilaahay ugu talagalay baa dhimatay dee allah u naxariisto innagana ilahay nooga daba naxariisto kulley waan dhimanaynaa waa intaa ka bacdi dadka walaalaheena ahee amba somalilan ha joogaan amba waddannada kale jaarka ee jabuutiba ha ahaadaan ayna soo caawiyena way mahadsan yihiin ilaahay iyagana haka jisaaysiiye waxaan leenahay dadkani hu ma haystaan waxay cunaan ma haystaan waxay xidhaan ma haystaan beel ay galaan hoy galaan ma jiraan bacadkaabay fadhiyaan dawlad iyo dadba innigaa u ah gurmad iyo qaylaba innigay inaga sugayaan innigay inagu leeyihiin inta ilaahay ka sokaysa ka baaqe innigay inaga sugayaan waxayna leenahay dalka innigaa u dawladda innigaa maanta ka mas-uula dadka maskaxda ee barakacay dee gurmad iyo gargaarba kuwa aad dibad ugu doontiin iyo kuwa aad dalka uga doontiinba innigaa laynaga sugayaa dawladdaa laga sugayaa waad mahadsantihiinna waxaa hore noo keenteenna waad ku mahadsantihin